قصة طريفة كتب التفسير الشيغان آيات مركي مريا وما تدري نفس نفقرن ميزو ماذا تكسب غدا بالروح شقيسان يا مالك قدام بين منبا وما تدري نفس نمؤغو بأي أرض تموت لك يكون ما وتك أوغو إيماننا ما قرنيسو نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام ومال مالما كميدا فديا مجلس كيسي ويناء الشام برغا دحي شام كيالي جوغا أما يوم بمركا جوغا مركو بلقيس u tagay haday doon han noqotee ayaa malakuu soo salaamo soo booqday xalqadii iyo 10 ba iska fadhiistay soo hawl loo diray sugay inuu soo qabto wax yar markuu malakuu fadhiyo wuxuu arkay nin xalqadii 10 dhex fadhiyo nabi Suleymaan dhageysanayo 10kii iyo muhaadaradii waanadii fadhiya oo saacada kadib la amray malakul mawt inuu nafta kaga soo qaaday Hindiya intuu 10 socday ninkii aad u fiirinaya oo indhaha ku mudahaya xulay ninkaani soo ninkii Ilaahay ku yiri ma aha nafta kaga soo qaad tooli heblo oo Hindiya ku taala maxaa ninkan Yaman fariisiya aminkan maxaa aminkan dhigay Shaam iyo Falastiin iyo Suuriya iyo Lubnaan ninkii admalagii baa galay wuxuu ka shakiyay ninkii indhaha ku koorhaya ku mudahaya aad u fiirinaya markii 10 nabi Ilaahay Suleymaan dhameeyay يا نبي سليمانو نين كان نين درين قبو اجاد بيفير وان كشكيي ان ان كفغادان رباي طبيشادي ددك قادت ديارada ii amar hindi ha laga tooro طبيش والله امر hindi laga tooray waxa ka daba tagay druwaagi dadka libaaxi dadka leen jira ka daba tagay malkul mud ba ka daba tagay libaaxi baa ka nafta kaga soo qaaday markii xadiis baa ku min saxiixa markii Ilaahay ajashaada iyo dhacaankaada oo meel ku qoray in naftu ay kaaga baxdo dan baa laga gelinaya sadneeru iskaga joogto eed u ladan tahay in baxday maanta muqdishaan gaarahaya saada airport uga degto xabad wiiftaba kugu dhacaysa ma heblan gaarahaya kanaaca ku cuna kow dan aan weliga ka soo galin meesha ayada laga gelinaya ما وجد مالي نفتك على قبح حيس مرة ذي سيدا تاي موت قفلون هذا بطي نفتض مالي كبح يحل يبحنا أذن كور قبن آدم وحوي الدنيا يسنكو الضاقين كديار قرو آخر أوصى قادوا إلهي كحشو طوبات كيل ما أنت هذا الوادكت وأول يوم من رمضان بابكو إمامكو إنه قصوا 10 يوم ما أنتوا إسلام مرك آدي هلا سئل عليه